nolosha bini'aadamkuna horumarkuna ku xidhmaa waa amniga intaan nool lahayna waxa la yiraahdo internal security gaanba amniga guduhu oo wax iska jira laakiin xigmaddu waxay ku jirtaa shay kasta oo dhacaya waxa ka dambeeya inaan qiimayno umaleyn maayo maanta Soomaaliland nabadgelyadeedu inay ka xidhan dawladnimada anu wasiirka arrimaha gudaha ayaan la shaqeeyay ahaan jiray ku xigeenka waxaan dareensanahay amnigeenu wax ku xidhay waa shacabka waxaan koonfurka ka duwanahay amniga wax ka shaqeeya waa shacabka idin la shaqeyn jirtay ugu badnayd waxa ahaan jirtay shacabka askarigu wax badan kama qaban karo nabadgelyada hadaan shacabka gacanta ka helaynin waxaan ku soo gabagabeynayaa aan ku dadaalno amnigeena bilaadan baan nahay wada fari karno in xaalad ka jirto gobolka wada fari karno laakiin waxa xigmad ku jirta waxa weeyaan waxay naga xuneen inay noo muuqdaan bilaadan haddaanay wada hadal waxay la tahay inaanay waxba u hagaagin dawladda iyo gobolkuba diyaar wuxuu yahay wixii tabashaa ee macquul ah ee waarkayna wax la dee suurtagal ah in laga wada hadlo wada hadal lagu dhameeyo aan wada hadal lagu heshiino waxaan ku talinayaa madax dhaqameedna joogan halkan waxa kaliya Soomaaliya isku ay waxaan jira madax dhaqameed waxaan nabadgelyada xiriirin jiray waxaan jiray nabadgelyada madax dhaqameed way farabateen waxa farabataan oo barakadiisa yaraata waxaan jeclaanaynaa inaan odayaasha madax dhaqameedku inay ka noqdaan wixii tabashay jira oo gobolka la shaqeeyaan sababta ninka madax dhaqameedka gobolka la shaqeeya caagan haduu yahay Suudaan haduu yahay waana structure dawladeed oo hoose koonfurma laha madax dhaqameed sideen oo kala ah waxaan xusuusanahay dagaaladeennii oo dhan 880 waxa dhamaystiray waxay ahaayeen heshiis xagga dhaqanka waxaan markaa jecelahay arrinkan nabadgelyada inaan xooga saarno waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi